ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa cambaareeyay xukun isugu jira xabsi ganaax iyo waliba kharash kaas oo maxkamadda degmada Ceerigaabo maanta ku riday wariyaha Ariel TV uga howlgala magaalada Ceerigaabo Cabdiraxmaan Maxamed Xidig waxaana xukunkii maxkamadda kadib arintaasi ka hadlay wakiilka ururka saxafiyiinta Soldier ee gobolka Sanaaga kana mid ah boardka ururkaas Cabdilaahi Xuseen Darwiish waxa maanta maxkamadda degmada Ceerigaabo xukuntay wariye Cabdiraxmaan Maxamed Xidig oo ka howlgala telefishinka Ariel TV ee magaalada Ceerigaabo uu jooga wakiilka ah maxkamadda degmada Ceerigaabo waxay wariyaha ku xukuntay 6 milyan oo ganaax ah 22 bilood oo xariga iyo $300 oo loo xukumay qofkii ninkii dacwadda dabada ka waday oo ah maariye ku-xigeenka madbacadda qaranka Somaliland anigoo ku hadlay ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier waxaanu leenahay xukunkaasi maaha mid aanu ku qanacsanahay maaha mid aanu qaadan karayno maaha mid aanu aragno inuu ku fadhiyo ruudkii cadaaladda ee xaq ahaa insha Allah rafcaan waan ka qaadan doonaa qareenna waanu qaban doonaa wariyaha la xidhay laakiin waxaanu leenahay xukunka haddaanu nahay ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier waanu cambaaraynaynaa wariyahana waxaanu ka codsanaynaa in loo sii daayiyo xorriyadiisa hay'adaha sharciga ee maxkamadda xukuntay saxafiga ka awoodda sareeyana waxaanu ka codsanaynaa xukunka inay dib u eegaan Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Sugulle Saab TV Ceerigaabo